iyadoo ay muddo kooban ka harsan tahay munaasabadda ciidul fitriga ee islaamka ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Burco saxmadda wax kala iibsiga goobaha dharka iyo agabka kala duwan ee ciida goobahan ayaa arkaysa iyagoo ay ku sii qulqulayaan bulshadu si ay uga iibsadaan agabkii ciida ay kaga qayb qaadanayeen munaasabadani ganacsatada bacadlayaasha iyo dadka iibsanaya ayaa TV-ga qarankan Soomaaliland u sheegay in faraq weyn u dhaxeeya sanadkan iyo sanadkii hore dhinaca sixirka wax badina iska bedeleen taasi oo ay sababtay dagaalada ka socda dalka Yemen oo saameyn ku yeeshay ganacsigii Soomaaliland uga iman jiray wadankaasi xukuumadan Axmed Maxamed Maxamuud Silaay oo farxad ugu soo korisay waa lambar 1 iidan oo ay wanaagsan oo dadka iyo dunida iyo dalkuba ay jimcooyin roob badan ay deen barwaaqo ay jirto dhammaan dadkii qurbajooga oo soo noqday dadku aad iyo aad u xiibsanayaan alaabtu way wacan tahay magaaladu waa nabadgelyadu waa boqolkiiba boqol weeye sanadkii hore sanadkii waxay kala duwan yihiin horta wallahi ma sha Allah runtii marka la eego ganacsiga horumarkiisa sanadkan iyo sanadkii hore farq weyn baa u dhaxeeya marka horumar weyn buu sameeyaa ganacsigu sanadkan iyo sanadkii hore waxay ku kala bedelayeen sanadkan waxaad muddo dharku aad u yar yahay Yemen oo kale wax inooga iman jireen dagaaladiiba saameyn bay nagu yeesheen waxba kama iman laakiin boqolkiiba boqoladana waxaan ku dadaaleen in maadaama ay Yemen inaga xidhatay wixii ay ka mid jireen aynu bashishkii buuxino meelo kale oo wax laga keeno aynu sameeyno marka China oo kale iyo Turkiga oo kale iyo hoose ganacsiga oo nooga iman jirtay sida wadanka Yemen oo kale ama Abu Dhabi oo kale iyadoo imaka ay wixii isu rogeen stock ama order laga soo sameeyay China ama Hindiya waana imaka aad iyo aad bay u fiicantahay sida wax looga iibsado tacmiirtuna way wanaagsan tahay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay ciidul fitriga aad iyo aad baa si fiican bay socotaa si wacan wax looga iibsanayaa dadkuna sanadka waxaad moodaa in intii hore aad uga badan yihiin xagga sixirka waxaad moodaa in dagaalka Yemen yar saameeyay oo dharku sidoo hore waxay dadkuna aad moodaa ka yara cabanayaan oo leeyahay yara qaali laakiin wax weyn oo dhifrin wali isma bedelin dadka reer Burco waxaan ugu talagalay mariyaad qiimahoodu u macquul u yahay oo quality-goodu u sareeyo qiimaha aad u raali galiyay taasina waxay kaliftay in aad noogu xirmaan dadkii inaad mariyaha ciid iibsado dareenkayga ciiduna aad buu wacayn waan iibsaday waxaan zaagaraynaa ciidii bishii ciidul fitri waxaan leeyahay muddo islaamka kulli caam wa antum bikhair dareenkayga waa qaali waana si wanaagsan waxaan u jecelahay inaan u ciidno farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku ciido dhinaca kalena ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana habeen iyo maalinba ay ciidamada booliska Soomaaliland ku howlan yihiin adkeynta nabadgelyada goobaha saxmadda badan cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.